saddex shay baan idinka dardaarayaa dhalinyaro. Addiction to comfort iska ilaali. Inaad la dagaalantid oo naftaada aad kala dagaalanto in alla intii kuu suuragala. Waxyaabaha qof naftiisa ka jeceshahay wahsiga iyo iska yar fadhiga iyo inaad naftaada kala dagaalantid oo ku hawshid oo mar walba naftaada aad ku dhaxaysid circle iyo daa'iro challenge gareynaya waayo koriinka dhabtii wuxuu ka dhacaa struggle ka dhexdiisa. Koriinka dhabtii kama dhaco nafiskaaga marka naftaadu ay dareemayso challenge markaasay naftaadu awoodaheegu soo baxaan markaasay naftaadu ku khasbanaataa inay wax bedesho markay wax bedeshana waxay isbedelaan nolosha. marka wax kastoon ka dhuumanayno ka cararaynaa oo wax kastoo inaga dhigaya qof karti leh macquula maskax leh faham ballaaran oo xididdo adag u aasan yihiin. hala qabatinin comfort naftaada in alla intaad kala dagaalami karto nervous iyo iska baashaal iyo take it easy intaad kala dagaalami karto kala dagaalan. Don't get addicted to that. haddaad addicted ku noqotid waa ku dhamaatay. qodobka labaad ee idinka dardaaraya wax weeye walaal shortcut ina raadis mar walba inaa dariiq yaroo gaabanoo maaragtay fududoo hack let's hack this maaragtay there's a hack to that this qofka wax noqoshadiisu waxay ka timaadaa trials isku day inuu caqabad xaliyo inuu maaragtay fikrad cusub daba galo inuu hamad daba galo oo xoogiisa xeeladiisa iyo maskaxdiisa iyo muruqiisa iyo maalkiisa dul saaro dhabaynta wax inuu qofku u jeedo iyo riyad daba ordayo ayuu macna ku yeeshaa. marka shortcut raadintiisa waa lagu daahaa. haddii maanta wax kastood ku hamiyeysa lagu siiyo ku dhadhami maayaan because processkii lagu gaadhayay ayaana soo marin. nin saaxiibkay baa maalin wuxuu yidhi ilaahow waxaasaan damacsanahay isii ilaahow kartidii iyo caqligii iyo garashadii hayn lahayd ee maamuli lahayd ee aanan ku amban lahayna iigu dar. marka qofka shortcut rabaa marmarka qaar waxay soranaysaa subxaanallah shortcutka qofka wax ku rabaa haddiiba la siiyo waanan aragnay nolosha dad badan baan aragno wixii ay rabeen sikadiisa oo fajaa oo maaragtay degdega u helay laakiin nasiib daro ama ku ambaday oo iyagii naftooda wax ku yeelay ama ku baaba'ay ama ku ambaday amaba sidii ay ahayd in looga faa'iideysto uga faa'iideysan karila. waayo qofku dariiqii wax ku baran lahaay wax ku noqon lahaa uu ka soo booday natiijadii iyo isagoon baa ishaleelay ma handal gareyn kara natiijada. qodobka saddexaad ee aan idinka dardaarayaa waa inaad ku dhacdo dabinka la yidhaahdo comparison isbarbardhig. cidna isbarbardhigin safarkaagu waa kuu gaar dariiqaagaad dul saaran tahay qof walba leenkiisu saaran yahay cid kastaa cidda kale lama mid aha. beejkii 100 haddaad marayso qofka beejka koowaad soo maraya inuu isku kaa barbardhigo wuxuu ka qaadi beerdilaac iyo niyadjab ka qaadi adiguna saas lamada beerdilaac iyo madax xanuun baad ka qaadi haddii adigoo bartamaha maraya qof finish line-ka joogaad isku barbardhigto. war progress waa personal qof walba dariiqiisu haystaa dariiqaaga inaad xarago ku marto uunba adig kula taala kulama taalo qof kale dariiqiisa inaad quudarayso oo isku qiimeyso. dadka kale inspiration ka qaado qof wax noqday dadaalay midho dhaliyay natiijo keenay haddaad aragto take inspiration from them but don't compare yourself to them. you have a different journey. you never know halka uu journey-gaaga ku dhammaan doono iyo waxaad noqon kartid iyo waxaad noqon doontid. maybe you end up being the biggest. you never know. qofna ha isku compare garin. saddexdaas aan idinku dardaaraya.